magacaabo Rabia waxay ku nooshahay galbeedka dalka Afghanistan iyadoo qandho dareemaysa ayay la kulantay dhakhtar si uu xanuunka hayo ugu daweeyo. Dhakhtarkii ay la kulantay wuxuu ka baaray cudurka COVID-19. Rabia baaritaan kadib gurigeeda ayay ku laabatay iyada oo weli xanuun iyo qandho dareemayso. Warqadii uu dhakhtarka dawada ugu soo qoray ayay seegeeda u dhiibtay si uu dawada warqadda ku qoran ugu soo iibiyo. Markii uu seegeedii arkay magaca xaaskiisa oo warqadda dawada ku qoran, wuu carooday wuuna dilay isaga oo aad ugu xanaaqay ninka ajnabiga ah ee magaceeda u sheegtay. Dalka Afghanistan, xubnaha qoyska waxay haweenka dalkaasi ku qasbaan in magacooda uu mar waliba uu sir ahaado oo ay dadka qoyskooda ka baxsan ay la wadaagin, xataa dhaqaatiirta. Balse waxaa socda olole arrintaasi loogu soo horjeedo, ololaha Aaway Magacayga ama Where is my name. Dhibka ay la kulmaan haweenka dalka Afghanistan wuxuu kasoo bilowday gabadha marka ay dhalato. In gabadha magaca loo bixiyana sanado badan ayay qaadataa. Gabadha marka la guursado, warqadaha casuumaadda xafladeeda arooska xataa magaceeda laguma xuso. Marka ay xanuunsantana looma ogola inay magaceeda u sheegto dhakhtarka ay la kulmayso. Marka ay gabadha dhimatana magaceeda laguma qoro warqadda caddaynta geerideeda iyo qabrigeeda toona. Waa sababta ay haweenka dalka Afghanistan badankooda ay u ololeynayaan inay helaan xuquuqda ah in magacooda si xor ah u isticmaalaan, iyaga oo ololaha alkudhiga ugu dhigay Aaway Magacayga ama Where is my name, iyaga oo astaamaha ololaha baraha bulshada si weyn ugu isticmaala. Haweeney kale oo isla gobolka Herat ku nool ayaa sheegtay inay dooneen in idaacad codkeeda laga baahiyo oo codkeeda la garto, waxayna dhaqanka noocaasi u sababaysay ragga. Marka uu qof i weydiiyo inaan magacayga u sheego, waxaan ka fikiraa sharafta walaalkay, aabahay iyo ninkayga, markaasaan u diidaa inaan magacayga u sheego, ayay tiri. Maxaan qoyskayga ugu xanaajinayaa? Maxay tahay muhiimadda aan magacayga u sheegayo? Waa inaynu isu aragnaa aabahay gabadhiisa, walaalkay walaashiisa. Mustaqbalkana waxaan doonayaa inaan usii arko oorida seegeeda iyo ilmo ay hooyadeed dhashay. Sheekadan waa mid argagax leh, balse ma aha mid ka duwan waxa wadankaasi Afghanistan ka dhaca. Haweenka oo magacooda adeegsada ama la wadaaga qofka qoyskooda ka baxsan qayb badan oo dalka Afghanistan ka mid ah wuxuu ka yahay ceeb. Rag badan oo dalka Afghanistan ku nool ma ogola in meel fagaara ah ka sheegaan magaca gabadha la dhashay xaaskooda ama hooyadood, iyaga oo u arka inay ceeb tahay. Sharciga dalka Afghanistan ayaa ogolaanaya warqadda dhalashada in lagu qoro magaca aabaha oo keliya. Marka laga soo tago dhibaatooyinkaasi la caadaystay, waxay abuurtay saameyn shucuuri ah oo aad u weyn. Farida Saadaad waxaa lagu guursaday yaraantii 15 jir markay ahayd. Ilmihii ugu horeeyay ayay dhashay, iyada iyo ninkii qabayna way kala tageen. Kadibna iyada 4 caruur ay dhashay waxay ku wareegeen dalka Jarmalka oo ay haatan ku nool yihiin. Waxay sheegtay ninkeeda nolosha caruurtiisa jir ahaan iyo maskax ahaanba inuu wax door ah ku lahayn, sidaa darteed waxay aaminsan tahay inuusan xaq u lahayn in magaciisa la raaciyo aqoonsiga caruurteeda. Caruurteyda keligii ayaan koriyay, ninkaygana wuu diiday inuu i furo, gadaashiisna in ma guursan, ayay tiri Farida Saadaad. Haddaba ma ogolaanayo in magaciisa la raaciyo aqoonsiga caruurteyda. Dad badan oo ninkaygii hore la mid ah oo xaasas badan qaba ayaa Afghanistan ku nool, balse caruurtooda ma daryeelaan, ayay tiri. Madaxweynaha Afghanistan waxaan ugu baaqayaa inuu sharciga wax ka bedelo oo hooyooyinka loo ogolaado in magaca hooyada warqadda dhalashada iyo tan aqoonsiga lagu qoro. Leila Usmani oo iyadana kasoo jeeda gobolka Herat waxay sheegtay arrintan inay ka daashay, haddana ay si buuxda u taageerayso ololaha Aaway Magacayga ama Where is my name. Ololahaasi oo lagu doonayo dumarka Afghanistan inay helaan xuquuqda aasaasiga ah ee ka maqan oo ah in magacooda adeegsadaan. Usami waxay BBC-da laanta Afghanistan ku hadasho u sheegtay iyada iyo saaxiibadeed inay doonayaan inay su'aal soo jeediyaan. Su'aashaasi oo ah maxay tahay sababta haweenka loogu diidayo in magacooda adeegsadaan. Ololaha Aaway Magacayga ama Where is my name ayaa qarka u saaran inuu guuleysto hadafkii laga lahaa oo ah dowladda Afghanistan in lagu cadaadiyo inay ogolaato magaca hooyada in lagu qoro warqadda dhalashada halka magaca aabaha lagu qori lahaa, ayay tiri. Maryan Sama oo ka tirsan golaha wakiilada Afghanistan ayaa qayb weyn ka qaadanayso in ololahan lagu guuleysto. Mrs Sama waxay dalbanaysaa magaca hooyada in lagu qoro warqadda dhalashada, iyada oo barteeda Twitter-ka ku qortay in haweenka Afghanistan ololahan xuquuqdooda lagu raadinayo ay garab istaagayso. Ragga badanaa waxay haweeneydaasi baarlamaanka ka tirsan ku eedeeyeen magaca hooyada in shahaadada dhalashada lagu qoro waxa ay u doonayso in iyadu ay garanayn aabaheed qofka uu yahay. Dadka caanka ah ee dalka Afghanistan sida fanaanka ahna soo saaraha heesaha Fahad Darya iyo fanaanada Arya Sayid ayaa bilowgiiba kusoo biiray ololaha lagu raadinayo xuquuqda haweenka. Fahad Darya wuxuu sheegay hooyada, gabadha kula dhalatay, gabadha aad dhashay iyo haweeney
haweeneyda ku dhaxdayba inay door muhiim ah ku leeyihiin hoggaanka ugu muhiimsan nolosha, balse ay ahayd oo kaliya wax la isku aqoonsado. Markaan tixraaco doorka haweenka, waxaa meesha ka baxaya ama lumaya asalkooda iyo jiritaankooda dhabta ah, ayuu yiri Fahad. Raggu hadday diidaan inay haweenka aqoonsadaan, waqtiba ha qaadatee haweenku waxay bilaabayaan inay raadiyaan aqoonsigooda. Aryana Sayid oo ka mid ah fanaaniinta ugu caansan dalka Afghanistan oona ka mid ah dumarka u ololeeya xuquuqda haweenka, waxay BBC-da u sheegtay inay jiraan dad ololahan taageersan, balse hadafkii laga lahaa in la suurageliyo ay u baahan tahay waqti badan iyo waddo dheer oo la maro. Sababta ugu weyn ee haweenka loogu diiday aqoonsiga ayaa ugu wacan hoggaanka dhaqamiga iyo kuwa bulsho, iyaga oo sharfa ragga oo kaliya. Waxay haweenku sidaa u kale u qasbaan inay magacooda qariyaan, ayuu yiri Cali Kafiif oo ku takhasusay cilmi nafsiga oo ku sugan Afghanistan. Haweenka ugu qiimaha badan Afghanistan waxaa weeye haweenka qoraxda iyo dayaxa midkoodna arag, ayuu yiri Shaqadooq Javari oo ah dhaqtarad u dhalatay Afghanistan oo ah haweeneydii ku guuleysatay abaalmarinta hal-abuurka ee dalka UK. Waxay sheegtay in haweenka Afghanistan inay u baahan yihiin aqoonsigooda inay helaan, ayna u baahan yihiin dhaqaale, xorriyad bulsho iyo mid maskaxeed. Dowladda Afghanistan waa inay tallaabo sharci ka qaadaa dadka dumarka u diidaya aqoonsigooda. Tan iyo markii dowladdii Taliban xukunka Afghanistan laga tuuray oo hadda maraysa ku dhawaad 20 sano, heer qaran iyo heer caalamiba waxay dadaal xoogan ugu jiraan inay dumarka sixada nololeed soo noqdaan. Si kastaba ha ahaatee, dumarka la midka ah Rabia waxay weli xadgudub kala kulmaan ragga ay u dhaxaan, maadaama ay Arabia loo dilay oo kaliya magaceeda ay u sheegtay darkii daweynayay. Javari waxay sheegtay inay aaminsan tahay halganka bulshada oo kaliya, maadaama uu wax ka bedeli karin hoggaanka dhaqanka ee dalka Afghanistan, in dowladda qaado tallaabooyin sharci ah oo ay uga hortagayso xadgudubka gabdhaha iyo haweenka loo geysto. Arrintan baarlamaanka dalka Afghanistan waxaa lagu soo hadal qaaday, balse waxaa la ogeyn sida ay siyaasiyiinta ugu falcelin doonaan ololahan "Aaway magacayga" ama "Where is my name" ee xuquuqda haweenka lagu baadigoobayo.